بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن وناكسن داوديال لغيستيال ميل walba aad joogtaan. barnaamijkeenan maanta waxaan uga hadli doonaa haddii uu rabbi raalli ka noqdo waxqabadka dhinaca kaalmada maaliyadeed, horumarinta iyo waxbarashada, caafimaadka iyo abuuridda shaqooyinka ee Professor Cabdullaahi Cabdi Talyaani intuu sameeyay sanadkii 1979 marka uu ahaa Cabdullaahi Cabdi Talyaani gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose ee Kismaayo, waxa uu eeylo badan shaqooyin ka siiyay dekedda Kismaayo iyo mashruucii sokorta Marirey ee degmada Jiliba. waxa uu sidoo kale Professor Cabdullaahi Cabdi Talyaani shaqooyin ka siiyay wasaaradaha, wakaaladaha, shirkadaha iyo laamaha ciidamada qalabka sida. qaarkoodna waxa uu u qaybin jiray boonooyinka lagu iibsado shidaalka, sonkorta iyo saliidda. lacagta ka soo gashana noloshooda ayay ku maarin jireen. waxa uuna u sameeyay iskaashatooyin kalluumaysi. sidoo kale sanadkii 1995 muddadii uu ku shaqeynayay xafiiska qaramada midoobay UNDP magaalada Baydhabo, waxa uu fursad gaaban u helay in uu tixgeliyo codsiyada shakhsiyaad eeyla ah, qodista war u sameynta iyo kaalmeynta mashaariic yaryar. sanadihii 1996 1997 ilaa 1998 muddada 3 sano ah oo uu ahaa madaxa xafiiska qaramada midoobay UNDP magaalada Jowhar, waxa uu Professor Cabdullaahi Cabdi Talyaani fursad u helay in dad badan oo eeylo iyo jariir weyne ah oo ka shaqaaleysiiyo mashruucii tirakoobka dadka, xoolaha, beeraha, ganacsiga iyo dhaqaalaha qoysaska isaga oo mushaar fiican u qoray muddadii ay socotay tirakoobkaasi. markii loo keenay tirakoobka beeraha, waxa uu ogaaday inay jiraan 500 oo beerood oo bariis lagu beero in ay u baahan yihiin in loo qodo kanaalada waraabka oo dhooqo ka xireen biyihii waraabin lahaa beeraha bariiska. sidoo kale waxa uu fursad kale u helay in dhammaan beeraleyda bariiska oo ay ka mid yihiin eeylo iyo jariir weyn in beerahooda bariiska u helaan biyo waraab ku filan, wax soo saarkooda iyo dakhligoodana sare ayuu u kacay. muddada uu ku nool yahay Professor Cabdullaahi Cabdi Talyaani waddanka Mareykanka, waxa uu howl turjumaannimo ah siiyaa eeylada iyo jariir weynaha marka ay la mucaamiloonayaan xafiisyada kala duwan sida maxkamadaha, booliska, dugsiyada iyo isbitaalada. waxa uu u doodaa marka xaqooda uu ka maqan yahay, sida marka laga soo saaro guryaha iyo marka xaq darro loogu tuuro xabsiyada. eeylada iyo jariir weynaha waxa ay ku hadlaan afka maay iyo maxaa. Professorkana waxa uu ka turjumaa maay iyo maxaa. sidaa daraadeed dowladda Mareykanka iyo dadyooga Soomaaliyeed ee ku nool dalka Mareykanka waxa ay u aqoonsan yihiin in uu yahay Professor Cabdullaahi Cabdi Talyaani hogaamiyaha dadka maay iyo maxaa. dhismihiisa dugsi hoose dhexe oo ka kooban 5 qol iyo 2 MCH ayuu u dhisay eeylada iyo jariir weynaha deegaanka Haakaw ee degmada Wallaweyn ee Shabeellaha Hoose. xerada karantiilka shuban biyoodka ka dhacay degmada Wallaweyn waxa uu gaarsiiyay gaari buuxa oo daawo ah iyo faleebooyin kala duwan. isbitaalka la qorsheeyay in laga dhiso degmada Wallaweyn waxa uu ugu deeqay Professor Cabdullaahi Cabdi Talyaani uuna gaarsiiyay 5 kaariko baabuur dhagaxantii lagu dhisi lahaa isbitaalkaasi. ciidaha muslimiinta sida ciida Soonfurka iyo ciida Carafada iyo bishan soo qaadba, waxa uu Professor Cabdullaahi Cabdi Talyaani qaar ka mid ah gobolada dalka gaarsiiya kaalmo maaliyadeed oo kala duwan. asaylida 17 qoys oo eeyla ah oo aabahooda iyo nimankooda ay dhinteen amaba xaq darro lagu dilay ayuu gaarsiiyay kaalmo kala duwan oo ku kala nool degmooyinka Wallaweyn iyo Buurhakaba sanadkii 2021 gudihiisa. ugu yaraan 100 qoys oo eeyla ah oo ku kala nool degmooyinka Wallaweyn, Buurhakaba, Afgooye, Muqdisho, Jowhar iyo Beledweyn ayuu Professor Cabdullaahi Cabdi Talyaani gaarsiiyay kaalmo maaliyadeed oo ay ka soo codsadeen sanadkii 2021 gudihiisa. sanadkii 2021 Professor Cabdullaahi Cabdi Talyaani iyo 2 muwaadin oo kale oo ku kala nool Mareykanka iyo Yurub ayaa ugu deeqay kaalmo maaliyadeed oo gaaraysa $1,600, ugu deeqay 86 qoys oo eeyla ah ee ku nool deegaanka Faajirfaylow ee hoos yimaada degmada Xudur ee gobolka Bakool. intaasi ayaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii maanta sugu yar ee aan uga hadlaynay waxqabadka dhinaca maaliyadda, kaalmada, horumarinta iyo waxbarashada, caafimaadka iyo shaqo abuurista ee Professor Cabdullaahi Cabdi Talyaani. barnaamij caynkan oo kale intaan ku kulmi doonno waa annagoo idin leh sidaa iyo